waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa kooma. Waa xaalad qofku uu luminayo mise beelayo ogeyn waxa ka dhacaya hareerihiisa. Xaaladooda guud ahaan waa sida dad hurdaya, laakiin haddii aad la hadasho mise aad ku samayso wax xanuujin kara, ma awoodaan inay bixiyaan wax falcelin ah. Dadka ku jira koomada waa dad nool, mana karaan inay hadlaan, fikiraan mise jawaab ay ku siiyaan, laakiin waxaa shaqaynaya sida neefsashada iyo wareegga dhiigga. Ereyga kooma asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Giriigga oo micno ahaan loogu jeedo hurdo qoto dheer, deep sleep. Koomada waxay ka mid tahay xaaladaha caafimaad ee degdega ah. Sidaa awgeed, inta uu xaaladani ku jiro, dhibanaha kooxda bixinaysa daryeelka caafimaad waxay diiradda saarayaan shaqada maskaxda iyo guud ahaan jirka. Dadka intooda badani koomadu waxay kaga soo toosaan muddo ka yar 4 asbuuc, waxayna ugu soo kabtaan si tartiiba, laakiin mararka qaar ayaa waxaa dhici kara in ay bukaanadu ku jiraan sannado badan. Koomada waxaa keeni kara marka ay maskaxdu dhaawacanto, gaar ahaan waxyeelada marka ay u daadegto maskaxda hoos qaybteeda kaantaroosha soo jeedka iyo ka warhaynta. Dhaawacu waxa uu ka dhalan karaa siyaabo kala duwan: dhaawac ka yimid shil gaari, baabuur, traffic accident, macaan mise sonkorowga, dagaalada rabshadaha wata, hawo-la'aanta, infekshanka, waxyaabaha sunta leh. Sidaan horay ugu caddaynay casharka qaybtiisa hore, koomadu waa xaalad caafimaad degdeg ah una baahan in dhibanuhu sida ugu macquulsan wax loogu qabto. Calaamadaha lagu arki karo waxay noqon karaan indho daboolan, jawaab la'aan, xanuunka kama falceliyaan. Si loo ogaado xaaladdan waxa keenay, dhakhtarkaaga waxa uu su'aalo weydiinayaa dadka kuugu dhow sida hooyo, aabbo, xaaskaaga mise dadka kugu ag dhowaa marka ay dhibaatadu ku soo gaaraysay, si loo helo warbixin sax ah lagana howlgalo xalinta dhibaatada dhibanaha. Baaritaanada waxay isugu jiraan dhiigag iyo kombiyuutaro. Marka la daweynayo xaaladani, mudnaanta ugu horeyso ayaa waxay noqonaysaa shaqada maskaxda. Haddii aad xaaladan qof ugu shakido, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow. In la saadaaliyo waxay ku xidhan tahay inta ay la eg tahay dhibta soo gaadhay bukaanka, laakiin dadka intooda badani koomadu waxay kaga soo toosaan muddo kadib ayagoo badqaba, halka qaar kalena ay la soo toosaan naafo, disability, mise inay nafsadooda ku waayaan. Dhibanaha waxaa lagu arki karaa nabro mise infections kale. Sidaa daraaddeed, waxaa wanaagsan in si dhow loola socdo xaaladda bukaanka.